Bishara Talk Show. Bishara Talk Show waxaa maalgeliyay shirkadaha Oasis Care and Training Agency iyo hoyga quruxda ee Habboon Deeqa. waa tahay mar kale kulanti wanaagsan waxaan idinku soo dhaweynayaa Bishara Talk Show qaybtii labaad ee waraysigii Aamina Muuse Weheliye intaas oo dhan waxaad ku soo daawanayseen nolosheedii dhabta ahayd oo laga soo bilaabo tan iyo maalintii ay ku dhalatay magaalada Muqdisho ilaa iyo tan iyo intii usoo kicitay ama usoo hayaamaysay qurbaha qaybtii labaad nolosheeda ay ku qaadatay haddaba qurbaha qaybtii koobaadna wadankii bay ku ekaaday Aamina mar kale okay BBC imaaday dad maaragtay aniga role models ii ahaa codkooda aan dhageysan jiray banigii kuu sheegay oo ku yiri Cabdinuur Sheekh Maxamed Isxaaq saaray bandhiga raadiyaha heesta iskuulka la iga soo diray Axmed Xasan Cawke horta wuxuu ahaa the best friend of mine walaalka iigu fiican oo ahaa wuxuu ahaa qof aan isbedel Soomaalinimada inuu iska bedela aanay ka muuqanin macnaha kama wada ragga kale way ka muuqatay laakiin waxaan noqonay dad close ah Axmed Xasan Cawke wuxuu ahaa qofka tala kasta isiya haddaan umulaayo in la sii diyaarsado boorsada oo dharka lagu sii rito qofka ii sheega waaye because sakariya yar halkan ugu dhashay isaga ilaahay naxariista walaalkay waxaan noqonay dad partners ah oo macnaha barnaamijyada wada sheega rumors fara badan banaanka laga mariyay waa isqabaan waa isjecelyiin waa isixeen of course waa isjecelna dad walaalo isjecelaanahay ma garatay haddaan ishelayna way israbnay laakiin marka anagu weligeena iskumaanan dayan inaan isguursanay inaan isukaansano iskuma dayan ma fahamtay wuxuu ahaa ninka kaliya oo gurigayga garanaya wuxuu ahaa ninka kaliya oo marka uu israaho domestic violence badan aan maray iyo shaqaaqooyin oo guri iyo waxaasaan maray ka farxi markii uu israaho xitaa intuu maaragtay lacagta baqshad geliyo walaalnimo iyo sadaqo ku qoro waa walaalka Axmed Yare ii geliye meesha jiidka computerka ii geliye ayuu ahaa ilaahay maanta waa iga hooseeyay ilaahay wanaagaas faraha badan leh horta walaalkay ilaahay ha ku jannada ha ku waraabiyo oo ilaahay hortiisa ka siiyo because qofka wanaaga uu adduunka ku sameesto aakhiro ku helaa okay maxaa dhacay haddaba dhibaatooyin fara badan baa BBC-da aad kala kulantay oo aan kana maqlay adiga iyo waliba dadka aad soo wada shaqayseen iyo meelo kale adigoo laftarkeeda ka sheegaya waxaan rabaa adigoo maanta si guud uga wada hadlaya sidii xaqiiqadu ahaydna uga hadlaya maxaa kamid ah oran kartaa marka BBC xasuusato dhibaato ay adiga kugu soo dhacda BBC markaan soo xasuusto ma soo xasuusto dhibaatada hore kama soo xasuusto proud baan noqdaa inaan xilli wanaagsan ka shaqeeyay inaan dad qiimo leh يونس علي نور الله يرحمه الراحمين هذا النوح دول سعيد علي موسى عبد السلام هريري dadku wuxuu malaynaa nin weyn yahay laakiin igama weyna aniga daano iga yaray maxay ahay toona Axmed Xasan Cawke Cabdinuur Sheekh Maxamed Isxaaq maxay toona Maxamed Xaajib Siraad maxay ahay toona dalmara oo markaas sii tagay laakiin diimaha xageeda proud baan noqdaa sinna sad baan noqdaa because ma rabin inay noocaas ku dhamaato Bishara aniga waxa ay wada helay laba abuse actually mida abuse midka kala haara wuxuu ahaa waxa la yiraahdo bullying shaqada waxa ay ugu hela bullying dadkan hadda Ingiriisiga bartay wadankan ila jooga ama Soomaaliya joogto bay ka naga Ingiriisi badan bullying waxa waaye qofka oo mar walba la handada la cabsi geliyo mar walba laga carayso mar walba la taba taagnaado that's a bullying ila noloshiisa la nacsiyo gurigana waxa ay ugu helay wax domestic violence la dhahayo shaqaaqada guriga anigaana wadankan waxa imid aan nin qaba hal canug ninkaas u soo dhalay labadeedii inana horan ka soo sheekeeyay hooyada iyo hayso isla canugii yaraana 1 month uu jiro ayaa uu yeeshay kay canugii oo 4 bilood jirana waa ka soo tagay ana uurkii maya canugii oo 5 bilood jiraan ka soo tagay uurkeyguna 4 bilood yaa kii kale inanka uurkiisa leeyahay halkan aan ku dhalay ninkayga intaas u dacwoonayay qabay haday jiraan dad barnaamijka gadaal kala qabsaday this story is about me ana igu saabsantaa kuma saabsana ninka laakiin aniga dhankaygan ka sheekaynaya walaalkayga 3 caruur aan u dhalay horta waa tan ku sheego oo anu frinkan dhibsanay oo wali dhaqanka Soomaalida ah ugu jiray marka horta waan adkaystay hadda inta 3 ka dhala joogay oo dabeecadaha qalafsan anoo arkay hadana ku joogay laakiin dabeecadihii qalafsanaa waxba soo dhex galo oo in Yurub loo soo hayaamo ayaa soo dhex gashay isna inuu iska soo dhoofo waa rabana ninkayguna ii yimaado waa rabay
halkan markaan imanay qof waxaan ahaa BBC soo qaato qof cid la taagan ma ahayn dad kula talinayaa jira marka BBC-da dhexeeda oo familiga guryaha sida loo kiraysto ku sheegay dadkaasoo dhan waxay ii sheegayaan wadankan qof ilmo haysto oo kaligiis noolaad inay adag tahay runtoodayna ahayd wadankan markaa imaano Soomaalida oo dhan say sameeyaan lacagaha waxaan ku xisaabinaa annaga dollar inta pound kan tan dollar u bedelan dollarka Soomaali u bedelna wixii nala weynaadaan laakiin waxa aad qaadanayso marka halkan ku isticmaalayso wax ay yihiin ma laha nolosha caadiga ay la mid yihiin wadanka markaan imaaday waxay noqotay in la yiraahdo inuu horta reer baan hostelka BBC-da markaan ka baxay reer bay noqotay in qolka kiraysto uur baan leeyahay qof uur leh oo meel ay ku nafista rabto meel dharka kala dhigata rabto reer ma ku dul noolo ma la noolaan karto kastoo lacag bixinay waxay noqotay in guri kiraysto kus odagii ma la ii keenay hadaan guri kiraysan lacagtii waa yartaa bishaaro 24 sanadkeena lagu qaatay annaga markii hore 24 oo barrier waay marka barrierkaas waxa loo qaybinayaa maxay ahaytoonay sanadka inta uu ka kooban yahay 365 hadana waxa loo sii qaybinayaa hadana canshuura laga sii jaraa oo laba tax income tax waxa ku soo gala canshuurtoodii national insurance contribution oo lacagta dadka ay dhaqaata la siiyo okay intaas markii lagu kooxay hadana waxa bixinay guriga council tax-kiisi guriga canshuurtiisi dawladda hoose guriga ka xaqaysay mata qashinka ka gurayso jidka maarata bilaa waxa aad maraysay wixii dhan baa bixin wixii dhan waaniga council tax waa la bixin jiray Soomaaliya laakiin anigu wax walba bixiyo way ugu cusbaydo oo wax wadan shisheeye ku noolaado oo hooyo ii joogno aab ii joogno oo qof ii joogto aan jirin oo hooyada carruurta iga haysa saddex kale iga haysa kii kale aan dhalay xagee geynaya marka anna waxaan iska ahaa dadka sida sharciga marwabina iskaga noolaadaan jeclo sharciga ka baqa احترامنا مرنا دنعنا وكبقى دنعنا واحترامه إلا هذا ساسان هاي ما جعل الشرع إن قالوا ما جعل إن كرايم إيه مالة الدنبي وحين لا يقصوها له مركا وحين نقطع عرنجيجي إن ضد إيه هاي أجنبية ولا عقبة قاعدنا هاي مركا وح سهرة يا بسكير مركا وحين نقطع إن أنا كنا ولاده ما ركت تونا إيه باكت بينسي وح معنا لهاي قف أمله عنق ده الشيء ما فهمت أوكي هذا جي يمد هذا مركو يمد هالكاس لها بعد نفسه يسا دقالة بالله ugu bilaabaaday because aniga waxaan ahay awrki cidaan ahay awrki reerkaan ahay reerka miyiga degan awrka u dhaantaga waxba u sameey aniga awrki reerkaan ahay asaguna haduu shaqaysanayo looma diidine sharciga waxa laga soo siiyay aeroportka ka national insurance number waa inaad samaysto markaad sharci helayso shaqo raadsanayso national insurance number ka kolba waxaan u samaynayaa ballan uu ka boodaya ma rabi inuu taga ma rabi shaaninkan qorshe kale u dagsan anu qorshahaas lama ogi kamana midihi okay waxaa dhacday markuu yimid hadana inaan uur yeeshay gabadhayda Sulaaqa uurkeedi ilaahay ku caasiimaayo walaalkayga ilmaha iga dhalna ku caasiimaayo like this what happened to me halkan ka bilaabata marka hadaan imaado shaqada oo aan imaado bush house booskaygii bush house oo xilligaas muhiim ah magaciisa inaan sheego bulin ila fadhiya gurigii hadaan tagara ninkii dhib ila fadhiya لكن ده بوسكا قد كستا أو ميلا فربضنا ويوسف كلينا معها عدول بيوسف كراك قفل بوبولي everybody مد انتي مدنا البوبولي كري marka taas asaga dhinac baan dhigay buug dhan baa chapter dhan oo buug aniga noloshayda aan ka qoro aan ku saabsan oo la yiraahdo aniga iyo Yusuf chapterkaas waxa la yiraahdaa aniga iyo Yusuf buugayga waxa la yiraahdaa wax kastaba ka dhigay because waxa maray hagardaamooyin badan oo kaliya inaan la tacaal ninkii markaan keenay oo ila joogo walaalkay magac kale uu yeeshay magac kale isku dhiibay magac kale uu baxsaday anigana wadankan sharciyan ku keena isna uu isdhiibay ha sharciyan ku keena sharci marka qofka ku keento waa in sharciga raaca dan wuxuu noqday nin cusub ana ma oge bas aniga waxaan ahay gabar walacna ah oo ilmo caloosheeda galeen financial difficulties iyo maaliyadii soo galaysay ku maareyn lahaydna ay adag tahay tan waxaan noqotay shaqadii haday tagtana aan arxan ku haysan arxan waxaan ku haystaa walaalaha ila shaqeeya ma Cabdisalaana ma maxato cawka Allah u naxariistay ma Yunus badana markaas wuxuu jiray Soomaaliland ma aadan nuuxdula ma maxato Saciid Cali Musa everybody waa ay arxamaya waa walaalahay waa oo Soomaalinimada ilaalinay but this guy not
haddaan urkaygaa weynaaday urkaygaa soo weynaaday waxaa gaaray 8 bilood gabadheeda salaaqa urkeeda ninkii guriga ii fadhiyo abuse-ka waxaa rabaa gabdhaha soomaalida u sheeg waa kala duwan yahay abuse-ka waxa waa physical abuse mental abuse emotional abuse and financial abuse afartaas ugu badan spiritual abuse ajir laakiin anaga nama qosay because Soomaali baa guursanayna nin gaala ma guursanayno ya spiritual abuse wuxuu imaadaa marka oo la sameeyo laba qof kala diimo duwan physical abuse waa jug marka geesa maarta daamanka laga jabiyo emotional abuse waa marka lagu caayo financial abuse waa marka lacagta iyo cunada aad guriga soo gashay telefoonka guriga soo gashay telefoonka la qarxiyo oo cunada maxay ahayd toona la misuse karayo oo wax walba lagu dheelo emotional abuse la dhahaa waxaa la dhahaa financial abuse maxay mental abuse na waa waxa weeye marka mar walbaba mentality-gaaga wax adiga ku dhibaaya marka lagu dhaho like maxay ahayd saana tahay oo kulligeed wax foolxun intaas guriga iga socotay maalintii dambe waa baxay 8 bilood ah wiilasha ila shaqeeya hadday maanta kuwa nool dhagaysanayaan barnaamijkayga way ogyihiin wayna xasuusan doonaan way fasaxayaan kan sumeelahan oo meesha madaxda ka ah BBC waxay qabtaa sharci policy la dhahaa flexible working ilaa hadda waa jira sharcigaas qaasatan markaas waxaa talinaysay xisbigii Labourka wuxuu aad xil u siin jiray familieska flexible working that means waxa waa gabadha shaqaalaha ah oo UK ka shaqeyso in ay shaqeyso xilliga ay iyada shaqada ku faraxsan tahay that's what means flexible working marka flexible working ki asaga aniga flexible working ka oo aan aniga sameyn karo waxa waa in gelinka hor la igu qoro shaqada laakiin gelinka dambe la iga daayo sax but this guy oo BBC xukuumaya waxa ka ahaa wuxuu igu qasbaya inaan gelinka dambe ugu qoraya shaqeeyo shaqada soo gala waay isagu wuxuu eegaya xilliga adiga ku dhibaya because jadwalka shaqada asaa qoraayo soo ma haduuna isagu qorno sekretariyada qortana asaa amraayo soo marka maxaa dhacayo aniga foldid ahay lugaha ka barbarsan ka waxaysan wiilasha kale waxay dhahayaan aadan nuux dhuule iyo cawke iyo cabdisalaan iyo aamin abaay adoo sidan ah anagu reeraan leenahay maaragtay ma ku fiirsan karno anaga shaqada ka qabanayna bax bishaar ma baxay because daan baxo abuse kale ta aan aad guriga igu sugaayo ma bixi kari I just cannot go home da waxa jooga toiletka waxa jooga toiletka gala musqush suuliga gala muraayada isku eega muraayada la hadla that's where it come from saaxiibta muraayad it was me the one who was talking to the mirror qofka la hadlayo muraayad is me it's wixii igu dhacay waa wixii aniga soo gaara waa wiilasha baxay dhahaan aniga ma baxay because daan baxo oo guriga waqti hor tago dhibaatada guriga meesha ka bilaabana ilmahayga yaryar maxay ahaato maalin waxa lagu soo abaabay ilmaha lagu badul ooyo ilmaha hadaa ku dul ooyso dhaqankii ay igu jiro dadka ilmaha ku badul ooyo ilmaha hadaa ku dul ooyso maxay ma waa ka dhimanayaan ama jiisi wala xilka noqona ilmaha marab ina ku dul ooyo and then I have to cry I need some space to cry meela ku ooyo u baahanaa soo masuuliga saaxiib la noqdo marka qof oo soo arko gabar marka raadkeeda soo maqo waxa ku ortaa campinga fadhiisana واسقرنا نفتا اسكو علنا مر gabadhaas baxay muraayada la hadlaa because I'm alone ninka guriga waa jooga ka dalcid la dareema soo waxa u baahanaa marka qof aan la hadla aniga marka muraayada isku fiirnayo qofkii kale taa waxaan u wada qof kale inuu qof kale taa aan marka dambe I gave up hada ruux ma ablo on that time depression ay ugu dhacay aniga weligay life kama sheegin حاملة أورا لها فول تايم شغالة يقربها 9 o'clock وأنا بوش هاوس جوجو شرع برقبة هذا شغالة جوجو I have to go back ودن كيبر برسنا because شرعي ما بوحنين وأنا بوحس 4 سنة إنا شقيست وأمريكا في شقة كنت ماذا كبعد قاعدة دقناشو قحوتمي أنا ملي ميجان كلينين dadka qaxootiga waa dadka la magan galiyay oo wax kasta la siina guri la siina cunto la siina everything la siina I can't
ma u malay hooyada iyo ilmahayga aan kasoo tegay iyo inaan u daraan rabaa haddaan baxo waxaasoo dhan ma imaanayo soomaalida arka waxay dhahay maa shaqada iska joojisid maa mar kale farmaa lagaa soo qaada maya maa isdhiibtid how haddaa isdhiiba aniga kow kasoo bilaaba sharaftii iyo sumcaddii iyo wixii ani intaas aan ilaa iyo xanaano caruur aabahe igeey ugu dadaala aabahe wuxuu igu igeey anoo shaqada ugu sarreysa haysta inaan iska baxo ma igeey nan abaayo waa xanuunsada debreshona igu dhacay anu maan fahamsanayn xilligaas gabdhaha i dhegeysanaya dadka i dhegeysanayana inay ila ogaadaanaan rabaa mental health immunity ma jiro jir difaac male mental health markuu kugu dhacaa waa kugu dhacaa xaaladaana keenayso iskagama kaa dhacaayo depressurka markuu igu dhacay dan waxaan jeclaystay inaan nafta iska jaro I want to commit suicide 8 months uur 8 bilood aan leynaa isdilaa rabaa nolosha dhan aan nacay ma lahayd markaa cid kugu dhow oo saaxiibada ama ehelada ood aaminsanayd ood u sheegaysa dhibaatada guriga kaa haysatay friends ma qabo gabdho Soomaaliya ii dhow waanad aamini karin ma gabdho Soomaaliya ii dhow ayagana marka hore waan ka ilaalinay dhibaatadeyda because abaa anay dhaqanka waxaan ahaa gabar dhaqanka ku dhagan reerkaaga wixii ka jiro banaanka ma loo sheego hadda waxaas iska dhaafay telefishinka sheegoya I don't care wixii la sheegayo wixii la sheegayn bas ma raba inay aniga ugu jiraan 24 hours ma raba okay maalintii aan rabay inaan isdilo marka maxay sameeyay temple meel la dhahayaa jirto laba station Holborn iyo temple bushaas u dhawa Holborn marka meel la iska tuura male laakiin temple jidka hadaa goyso river Thames ku yaal wabiga Thames dabaalna ma aqaan ani I want to waa ogahay inaan dhimanayo dabiyaha isku tuuro way dabaalad kaga baxsan ma badliyida meesha oo darbiga istaag ana astuura rabaa laakiin caloosha saa'id u dheer saa hadaan dhoo caloosha xanuunas ma soo gidi kari qaabka isku tuuri lahayn ka fikiraa marka bad waa iga dhamaatay ina astuura rabaa I want to die weliga isma lahayn ina istisho ku fikir doonta marxaladaas aad gaari doontaa xanuunkaan keenay ina xanuunsanahay ma ogi waqtiba ma leh dadka BBC ka shaqeeya kulligood waa ogaan time ma leh waa fasax sanadeedkaad qaadanaysaa baasaboorkeyga Soomaali waa fasax sanadeed haddaan qaata xitaa 3 cunug iyo ninkaan iskagama tegi karo gabaraa jirta xitaa habar markaas aan keena ay joogto iyo labada asaga u dhalay iyo kii kalena caloosha ku sitaa haddaan tagaayana baasaboor ku baxo ma qabo because I am not British maahane xataa residency indefinite leave to remain xataa ma haysto baasaboorkeyga Soomaaliga wadanka ma laga aqoonsano wadankeyga 4 sac waa is cunayaan meeshaad joogtid ee dhibaatada no rajo amina meeshaad joogtid ee BBC da dhibaatada ugu badan kaaga socoto Yusuf Garaad ma aaminsan tahay inuu adiga shakhsiyan si gaar ah ku beegsanayay mise inta la kulmayba wariyaasha ka soo shaqeeyay BBC da dhibaatada inta ugu badan ka sheeganayso lamida ka sheeganayay horta aniga dabeecadeeda dadka si gaar adiga lagu beegsanayo aaminsan tahay maya dadka ma caayo horta dabeecadeeda laakiin aniga sida aan u maleynayo waxa waaye qofka markuu asaga le isma hadiyo Yusuf ani muu maleynayo xumaana uu dhashay inay tahay waxaan u maleynaa dadka qurbaha ku xumaaday inuu yahay ay kasadaan ma wallahi waxa ahsan u sameeyay laakiin ama aan uga weerweernaay but that time he was very bad he was really very bad waxa kaaga daran aniga gabar ahay halka gabar oo markaas joogta gabdhaha gabar kale joogto Yasmin la dhahay gabar kale Kaatil dhahay gadaalka imaatay waxa soo dhan iska dhahay qofka full producer ka ah ee joogta gabdhihii hore kalena waa bixin Jawaahir Suleymaan Shamsabo kullu waa bixin qofka oo joogtay oo halka gabar oo codkeeda aad loo maqlaay ta iigu darneed waxay ahayd libaha ahay marka dadka banaanka iga maqlaay because they don't know ina kadib waa dhageysanaysan ma ogidin waxaan ku suganahay ana kamid ah dadkii ku dhageysanay aniga dhexda ka dhimanay because abuse kugu socdo ee bullying kugu socdo qofka waa in qofka fiir qofka marka shaqada laga buluusay oo gurigiisa degan yahay qofka waa noolaa karaa gurigiisa degan laakiin labadiiba laakiin marka gurigana laga haysto balaay ka haysto shaqadana balaay ka haysto meel aan ku survive garoobaysa male ma fahamtay
awalka horna uma dhalan inaan meelaha warwareego qof baa qof wuxuu u dhalatay moogtahay qofka uma dhalan anaga dadkaan dhan beeqsana igu dambaysa intaas soo ma aan arkay xumaaga ma maqnay laakiin maba arkinba okay amino adan kalka ka dhex galo BBC-da waxaan xasuustaa dad badan oo dadkaad isla soo shaqayseena inaan waqtiyo badan aan sheekaysanay oo ka baqay way ogaayeen dhibaatada u sheegay hatta ku ajnabiga ogaay aniga biis kale oo lagu hayo shaqada dhibaatadaas la ogaay taas ku weydiinaya waxa weeyaan intooda badani deegaamada yaabana oran intooda badan deewaanay ahaydba Somaliland iyo waqooyigan idhaahna bay ka soo jeedeen iyagu waxay iiga sheekayn jireen inay aaminsanaayeen inuu Yuusuf Garaad hab marka hayb sooc oo kale ama kala qaybin oo kale uu iyaga si gaar ah u cadaadin jiray u beegsan jiray adiga hadaba aamin ahaan haddaad Yuusuf Garaad sida dadka la isugu tiriyo magaalo ka wada timaadeen oo waliba iskuna dhowdihiin ba tan toos u nidhaahnaba ma u malaynaysaa taas inay waxna ka badbaadisay ama aad wax at least dadkan wax dheeraydood wuxuu ku dhaantay oo adiga ku naxariisan jiray إذا هذا الكل حماس إمارة تقرأنا وبقينا أهين مقالة أسكلا إما تل من نقنيس مرمسية excuse من نقنيس يوسف قراك مو ملاينا إنه حمر كل شيء إنه بلد وين ملاس كل شيء ما كانت كنك بينه كل شيء لكن هو غوي هذا واركين اللي هيبسوا أقول قار أنا أسأل ملاينا ولا الكساقين أساكير سووا إنه جوينا هرتان وسكول كبح هو بدك كله قف خس الضبيعة جرت قفك كيس كلا كدرته يوسف ضدك بحق وبارر كلا فرفريستو والراعة أنا مأهن أنا وحناها قبر مروة والله قبل مرنا وحناها سنك المام قرابة أو المهدي قفك لعبت وجوه يسي ربط إنه تيكسته أو المهدي كسوك حيسته I don't have time مهين أنا يوسف كرع راعي رستورانت كلا فريست يوسف إلى لنا ضدك أساق كده بدو كده أنا وحنا إلى لنا شقديده أنا وحنا إلى لنا إنه باص إيه 8 hours كBBC وشقينا بس سدرنت أنا تاسواي waxa aniga aan ka soo jiito asaga u raaco meel cabitaan kala soo cabo baararkeen night club-yada wuxuu aadi jiray jaclaa u raaco aniga ma ku jirin I never been night club I was fanaanada ah laakiin never been night club waliba ma tagin aniga night club so aniga marka saaxiibtinimo kale aniga isaga igala dhaxaysa ma jirin laakiin suuqan ku dhameey aniga u malaynaayo waay aniga la buugan ka qoray arintayda u malaynaayo waxa waay Yusuf dabeecadda oo dadka dhan ku abuse garan oo aniga ugu abuse garan laakiin aniga degree fara badan dheera koo gabar aha laba waan ka nuglaa saddex wiilasha ila shaqeeya waxay ahaayeen dad asaga shaqada kaga soo horeeyay laakiin aniga waxaan ahaa asaga shaqada kaga dambeeyay Soomaali badan maadaama barnaamijku Real Life Soomaali badan ay aaminsan hawiya la soo qoray Yusuf Garaad iyo hawiyiisa anu ma aqoon waligay markuu uu bahalka dhiganay ma garan iska dhaaf asaga qabiilkiisa aniga qabiilkayga ma garanay mana aqoon gaar ah uma lahayn Yusuf aniga ma fahamtay aqoon gaar ah uma aanan lahayn saas la ashrigat waxyaabaha quruufaadka ah oo meelaha la wareejinayo ma jirin waxaan calafaa ii galay waa nigi idinkaga soo sheekaysaa ku hela calafkaasaan ilaahayaan uga abalhayaa ما فهمتي إن تو إمرسي مركي عن فيريو إيه وحي ما ركت وناجا هاي أشوفه دونا إن حتى somehow حتى هدو دونا somehow إن وناج الله هاي تو إمرسي كدر هي abused me هي بلن مي أنا جا وإبلي كري يوسف سعده وإبلي كري so television ما so وطن بريتش مجوجنا أو محكمة بحاجة كفرنتا لا تكون حكوا ما دعوة it's not that easy it's not that easy because we كبول كريناي وحيد باورك BBC ده أساس حتى واكاس وحيرة حتى بالواكاس وحيده أو ترجع كلات أو جوج أو نفط أو كيرة عبد السلام هريرية وحده تأنا ولقي إلا من محمد كأوكسفورد يونيفرسيتي نلقى السومة وعبد السلام هريري نك اللي يراهو محل ده وزير كمر كده من نقنجر عبد الرحمن عينته دكتور فضل ميري هاربر قبل مر بالسومالي لان تكتب بوق السومالي كقرت كلنا المعسول أنا قوالله حشي وحشي حفيزك إنجليزك أو مركز الصومالي إنه أقابل مركز حفيزك السميناي يا UK أو حفيزك UK كفر الصومالي ده أرمي هذا قابل سن مركز اللفوراي ضد كل جلت شنا ينكجر ولا عسوم بس وحليه عسوم جبا أي مغلين dadka waa ka daga dheeriyeen dad aan casumaad gaar ah la soo diray wuxuu isku dayay inuu yimaado casumaad waxa lagu yiri ninka dhan la rabo inuu ogaado waxa la ogaanay how media kaga qayb qaata sidee media kaga qayb qaata dib u dhiska dalka iyo burburinta
صح ayuu ku saabsanaa workshopkaas Oxford University lagu qabta intaasoo maalmoodaan jirna waa ninkii inta telefoon markuu asagu meelo ka soo galay waa wiil kale walaalkiisa oo soo iska wariyaa Ilyas la dhahayaa imaaday anigu xumaan hadda wiilkaas oo ugu sameeyay ma jirto laakiin Yusuf markii inta ishaa wuxuu BBC afkaada kuma hadli kartay BBC halkan ma uu joogan ku aniga halkan BBC ma uu joogaba myself aniga personally la casuumay hada ay weydiiyaan sida meesha looga dhaqmana dawaa sheegaya marka soo noqday waxa uu diray wax la dhahaayo qofkan macnaha shaqada ku xad gudubta amal markii aan gudiga u tagana wixii waa socon waayeen waa fikray markii mataqaana how many times aan qoro warqadeedii sacilaad oo aan gudbin aadan nuux dhul ilaaha qarso twice asaaga cili aadan ilaahay qarso maanta waa nool nin xataa qabri ku jira marqaato ma soo qabsanayo asaaga cili waana haya warqadii koobigood oo dhan and I will print it out on my book no ku daabaca wuxuu weerar aamino ninkan BBC male asaga malaha adiga gabar shaqaysata xaaladaha aad ku jirto aad ku raato single mom inaad tahay waxa aan ognahay ninkan dartii shaqada hooga tagay shaqada hadii laga tagaayo ama waa laga wada tagaa shaqaadna ka tagay ama asaa kaligiis tagay markii dambe dhacday adigoo wada dareertay somehow ilaahay iridu furi doona abay laakiin aniga ma joogi karin ma adkaysan karin ma karatay aminoy waxaan ka maqlay qaar kamida wariyaashaad isla soo shaqayseen aad baan uga xumahay inaan intaas oo dhan aan kugu celiyo arrintan waxaan ka maqlay in adigoo Luton degan oo aad uga fog BBC-da inuu maalmahan tareen ku shaqeynay sida Sabtidii iyo Axadda uu kugu khasbi jiray shaqada kugu qori jiray iyadoo Ilaahay naxariisto uu ka yaagtan deganaayeen dad fara badan ay u dhawaayeen oo waliba ragihii uu adiga ku dooran jiray si uu kugu ciqaabad Luton uga timaado horta wax yar waxa way Luton waxa u dagay waxay ahayd aniga markii aniga aan ninkii kala tagnay horta waxaan ahay gabadha 27 jeer 27 jeer maxkamadda Ingiriiska la geeyay iyadoo ninkeedu dacweynaa ah aniga ninkina ma iqabin waa ifuray uu dacweynaa because markuu dacweynayo he has another name another wuxuu magac kale blade of birth kale waxa kale inaana aniga shaqaysan nolosha ciriir iyaga dhigo ilmihiisna aniga korinayo ma fahmid ani struggle badan soo maray magaceeda waan ku talagalay maanta inaan sheego struggle-ka aan soo maray wax la qarinayna ma ya okay xumaan uma qabo na Yusuf aan xumaan u qabin kan aan xumaan u qabo but my life markay tahay qasab waay my life illa sheegay in la qoro kayd noqoto lagu waana qaato gabar kasto aniga iga dambaysa oo sideedoo kale ta mudan doonta waa hubaa inay mudanayaan waa hubaa kumaan kun inay haddana mudan doonaan ma garad 27 jeer aniga defendant af Ingiriis waxa lagu dhahaa maxkamadda marka lagu qofka dacwada loo haysto oo isdifaacay qareen ma awoodo because ilmihii aan dhalay aan ka bixinaya kiro aan ka bixinaya naagta gabadha ii heynaysa lacagteeda aan ka bixinaya waxba aniga xataa dhar fiican ma gada karo by that time ya markaas waxa lagu dhahaa mushaarka korale la fiirina legal aid xaq ma u leeyahay maxkamadda markaa kugu saaraya qadarka isaara waxay taa maxkamadda sharafteeda Ingiriiska maxkamadiisa sharafteeda hadaad ilaalin dambi aad lahayn xataa waa lagu qaada inaad dhar suud madow gashato oo isdifaacdo muxuu markaa Ingiriisan aqoonina isku difaacay noqotaa because qareen ma yeela waliga qareen ma yeela maya aamino saashid waxay tahay isagu muxuu maxkamadda 27 sababta maxkamadda waxa waay ilmahayga ima tusto ninkii ay dhahay adu markaa mid u diidaa goormuu rabaa inuu arko laba maalmood wiig maalintee sabtay axad ha u yimaado ma imaanayo ilma ma rabiyo anaga waa la rabaa believe me ma ilma laba bari markuu u yimaado asaa maqnaaha waaba maqnaaha maxkamadda maxaa ku qoran maxkamadda kood oo dhan soo saaray maxkamadda amar maxkamadda soo saar waxa ku qoran hadii labadiina mid kamida uu jabiyo go'aankan waa inay halkaas ku istaagtaa oo maxkamadda la soo noqdaa sababta 27 jeer maxkamad la taaga waxa waa laba bari markuu ilmaha wado oo maqnaa ma rabiyo wuxuu rabaa inuu guriga soo galo oo sida bariga oo aamino qabo kale tashaah cabo oo lugaha kala fiirsado oo musqusha iska galo oo iska soo baabaashaan oo xaq ku dukaanada ajnabiyan kala hawad ajnabiyan kala hani adiga isku hormariyo marqayna dhaqan diinna ma dhaqan Soomaaliyeedna ma isku hormariyo marqayman abay caruurta say waa raayaan adiga saata tahay inay ma bii qabtid caruurta say waa fiican yihiin haddii aniga aan nafteeda u yaabo oo arko inay sakaraadahan dhimar raga badan anaaba dardaarmayo dhahay ninkaas dhalo meeshaas degan hala siiyo ilmaha ya laakiin ay hormar marqaysa ma ah ka 27 jeer maxkamad Ingiriis liigay anigu qofkii wadankan
wax keena ah anoo sharci buuxa leh anoo anigu lay magan gelin asaga because magac markuu isku dhiibay qaxooto iska dhiga oo tax payer oo canshuur bixinay aan 27 jeer aqbalay si aniga Soomaalnimo u ilaaliyo aniga waa dacway kare waa dhihi kare this guy wadankan waa keenay magacaas I will never ever say ma dhihin aniga adise ku garaweysa marka adoo anigina iga dhalin badan tahay ma aan ahayn ku garawey maxaa aniga inta tura maaha ninka aduu kugu xumaado kugu xumaaday labadiina la isku makiin turin abay hooyada ma dhal Soomaali Maxamed isku tiin Soomaali Samatra Soomaali Farax whatever you are but laakin waxa ixtiraama waxa waa marka Nasri Salman iyo Sulaaqa bari ay weynaadaan sida hadeer oo kaleeto habartayna adoogan xirta leema la dhahayo absolutely I don't want that because hooyaday aabay si kasto isu khilaafa abartay adoogay ma xirin maxkamadda qoyska aan jirto sharkeyga noo cadaada rabaa maxkamadii aakhirkii maxay ku soo gabagabowday ma sababtaad markaa ugu maxkamadda waxay soo gabagabowda marka la arka mar walba inuu igeynayo oo ilmo ima tusta leeyahay ay waxay leeyahay in la yiri gabadha la xaal hadda kadib maxkamadda ma keeninba ha imaanin maxkamadda gabadha la xaal waxba xukuuma diidan gabadha ilmaha waa ku tusay anna maxay sameeyay meel waxa jirta guardianship la dhahay oo ilmaha lagu haayo aniga ninka shalay idan waa u sheegay xataa abuse ka ninka shaqada ugu haayo waa u sheegay waxa walaalo aniga labadiina ninkaas shaqada unbuu madax ka yahay adaa iga xiga adigu hay abuse adiguna hay igu darin kii kala meesha ay fadhiyeen laba abeeso aniga midna shaqada ay fadhiyo midna waxa maba noolaanaye way maqli waay waxaan ku iri marka adigu shal hadaad aniga ixtiraami lahayd oo ina xariisan lahayd maanta aniga maxay toon kaama fogaa aniga maxay sameeyay waxaan sameeyay saanan depression dambe iigu dhicin saanan river thames dambe iyo webi dambe isku tuurowgis iigu soo dhicin saanay banaaya iigu soo dhicin waxaa sameeyay inaan arag inta ilmahaygu koraayeen inaan ninkaas indhahayga ka qariyo oo meesha caruurta lagu haayo u geeyo ilmaha 2 hours lacagta hada qaybteeda la baxo asaa hadii wax laga qaado maanta oo social service geeskaas fadhiisay baldheer ilmiyaas la fiiro hado reviewgii wixii la qoray maxkamadda lagu celinaa maxkamadda waa akhrine waxay arkay wax dhibaato oo meesha aan ka jiraba inayna jirin maxkamadahan abaay qofku markuu isagu ku dacweeyo oo legal aid iyo qaran free yahay dadka canshuurta bixi lacagtooda waay waxa lagu arkaa inaad public fundkii dadkan wadooyinka loogu dhisi lahaa waxbarashada loogu kaalmeyn lahaa inaad wasti garaynayso oo qasaaranaysa lagu arkaa ma ogola marka dambe waxay noqotay gabadha la xal ilaa yaraa gabadha la xal ma meesha ku arkay aboo maya durugaan ku arki maysid baraf hadow daa xataa inta ku arkay waxa gooy guriga ugu arkay guriga anaa degan aniga isma qabno marka inta xumaan imaan lahayd magaceedii ilmahaaga intay yaryar yihiin adigana maarata emotional aad tahay oo wax kasta aad gocanayso isbata inaad aragba ka habartaa ma adoogaana ma waa ilma isu dhashay waa xumaad xiriirka soo maaha kumana ixtiraamayo wadan shisheeya joogta xaq waxa u leedahay istifaacis marka maxaa waay ina avoid garayso ina aragta asaga ilmaha laaka xaq u leeyahay soo ilmahayga way ku koreen way arkayeen aabahood halkaas ugu geynay marmar guriga ugu iimaanay waday marmar guriga ugu iimaanay oo fadhigo la fariisanay anigana qolkeeda aan ku xabisanahay bas ninkan aniga ajnabi aan kalana aragtida intaas oo dhan oo dibsanaysa waatay hadan marka aan dib ugu noqdo maxaa waxaan la isweydiinayaa okay suicide iyo reverse teams ba taagneed Soomaha maxaa ka istaajiyay oo farajkii Ilaahay ku soo diray ka joojiyay inaad ishaligtood dhibaataysan maxaa wax badan abaayo horta nolosha adiga ku soo marta marka nolosha adiga wixii ku soo maro wixii aad ka ku soo maro of course waad gocanaysaa waad ooyaysaa saa hadda sameeyo kale laakiin waxaa rabaa in adiga wax barasho ku noqdaan inaad adiga ku aarsato inaad adigu maaragtay ku dagaal tagto dambe lama rabo aniga dhibkii waa ka baxay hadda aniga waa ka baxay يوسف قرادني ما أبيوساي أو ما أمين وحشاقية هبين كيس لحلقي ماشي أتاقني محاك مو كلفينا تشوشي ساقو آنكي هاينا دو حسياشو أو شغلة دقيقة داد ماشي أتاقني داد لهايدي ستيل مركز لهايدي ستيل دقيقة داد ماشي أتاقني أو بيدا تاقني محاكو بدلي كاتشوشي وحاي بدلي هرتو إلهي سبحانه وتعالى وحايدنا أدونك أنت سواك قوين دون تادحي أدونك وحايدنا نوبا إيدنا أدونك أنا مركز أوريري oo halka taagnaa oo aan rabay inaan boodo
waxaa horta idaahiya qaabkaa u boodaya because calooshaydan aaday u wantaana qof culusaa ahay sahalkuma kori kara meesha but I wanted to jump whatever happened say dantaba ha ahaatee waxaa i joojisay gabar markii dambe ii sheegtay inay jarmal tahay oo dalxiis ah af ingiriisi gaja a taqaano ayaa waxay ii weydiisay halka uu ku yaalo tiyaatar hebelow tiyaatar adiga bushaas ka soo horjeeday attentionkayga soo jeedisay marka halkii aniga aan ku talamayay see u boodaa attentionkayga soo jeedisay gabadhii way ogaatay inaan ooyayay aragtay waxay weydiinayso waa iska dhaaftay garabka iga qabatay qofka yaqaanay meesha waxaa ku yaala meel oo dalxiisku marmaraan waay kuraas la fariisto oo webiga lagu sii jasto qofku oo webiga iyo doomaha iyo daawan kara ku yaala kuraastii fariisisay kabacdi waxay igu tiri do you want tea waxaan ku dhahay bahay blood pressure aan qabaa tea ma cabi karo iyo coffee laakiin dikaaf aduuyaha malaha waa iska cabi karaa amaan coffee neera ku yiilay stationka temple geeskiisa aan tagnay way i fadhiisisay cabitaankii ii gaday danna waxay igu tiri don't do something stupid waayahay eri anigana bartaas meelaan ku tukan kara maaha laakiin bartaas waxaan bilaabay astaqfirullah ilaahu cafi laakiin ooyinta waa socota ooyinta waa soo badanay because maaha keliya inaan saad ka ahay isboodidii laakiin waxaa haddana saad ka ahay sababta aan ugu fikiray inaan isdilo anoo qof muslima ah dan nolosheedina dib usoo xasuusta yaraanteydii hooyaday aabahay walaalahay wixii dhan soo hormarmaraan daatana aan go-aan qaata ah inaan go-aan gaaro go-aanka soo gaaraya marka guriga haddaa tago aniga ma nasan karo go-aanna ma gaari karo hoosteedu ka dhalanaa shaqadina waa ka soo rabaxay kaa maxay noqotay waxay noqotay inaan blackcabka waa lacag badan yahay idinka waa ogtihiin inaan blackcab karaysto oo waxaan deganahay faynus daris camala ahayn markaas waxaan deganahay eastham aan deganahay meesha kow faynus ku arkeen wadanka kabacdi inaan blackcab karaysto intaan blackcabkaas ku jiro waa ooyaya maanta ninka wuxuu leeyahay biyo ma ku siiyaa maya xanja ma ku siiyaa maya aan biyeeye xanjamaan rabaa inaan go-aan gaaraan rabaa intaas between meeshii aan ka raacay ilaa iyo gabadhi kafeega gadaysa iyo wacday iyo waciriye ilaa iyo eastham oo fogaan dheer ah oo tareenkuba u soconayo saacad maaragtay wax la jira intaan sii socda waa go-aan waxaan gaaray instead inta aniga isdiri lahaa labadan nin ina ayaga ka takhaluso kee sahlan marka kan shaqada BBC u dhiibta aniga ma ka takhalusi karo laakiin kan waa ka takhalusi karaa kan waxa waa guura isku keenhay guurka hadduu dhamaado meesha ku dhamaada waa imid markaan imidna wixii oran jiray markuu yiri waxaan ku yiri sidii hore maaha so from now on afkaaga laba liira saaraysaa ilama hadlaysta aniga isla markiina waxaan wacay yellow pageka waxaan ka wacay locksmith qolka fadhiga ayaan u samaystay qunful si aan qayladiisa barriiqiisa uga badbaado markaa masquul hoosaa ku taala guriga laba masquul uu leeyahay guriga qaybta kore ka degan baan ku yidhaahno qaybta hoosan ka deganaana halkaas bay iga bilaabatay marka inaan xanuunsanahay may xanuunsanahay xataa ma oga laakiin inaan daktarka u tago inaan wax u sheego dadkii horta soomaalida markaa u sheego waxaa lagu daktar isku tagin daktar haddaa isku tagto oo la ogaado waxaan ku haya u sheeshato gaalada baa imaanaysa ilmaha lagaa guranaya horta marka dambe go-aanka waa gaarale inaan daktarka u tago laakiin goormee u tagay weli anoo xanuunsan gabadhii dhalay waxaa u taga markaan dhala kadib waa la ibaaray waxaa la ogaaday depression inaan qabo daawo inaan u baahanahay in la isiiyo canugtiin aan naaska nuujinayo anoo canugtii naaska nuujinayo inaan daawo qaada karin dan psychologista la ii diray anu luqadii waa aqiina oo qofka tarjumaad ma u baahnayn sirtayda xogtayda saas ku ilaashan tahay marka inkastoo qofka tarjumaada xataa hadduu soomaali aanu sirkaa bixin karaynin ma fahamtay dadkuna may garanaynin halkani waa BBC lana maxay too ka dhagaystaa hirarka gaagaaban wajigaaga qof ma arka I don't know waxaan ku suganahay aniga ma garatay marka waxay noqotay in la yiri gabadhina nuujinaysa mise waad ku faraxsantahay inaad iska goyso maxaa aniga gabadhan inaan nuujiyo gabadheedu baa rabaa qof shaqaalaha ka maqanaan ahaa haddii aniga aan xanuunsanahay oo caanaheeda iska siina okay kaniiniyaa la ii qoray oo aad u milligramkiisa yar yahay dan waxaan bilaabay inaan caafimaado
ودي قادت يا أنا عارفة ماذا بلابي مركا حوا أديك أيا قان مجاري كرت ديبرشر مركا قبت أستعمل وحكمت قف قان مجاري كرو قف ما أنت لو سكو وعياعة ما أنت لو وين ما تنتير فولا نقا قان مجاري سن قان مجاري كرت قان ككلية جارس وحوا أسد شو مركا ربطه تاسع إذا جارسيسي من يسترين الحمد لله الله ما يقاش بدبادي وين مركا أنا ما عرفت نلا شيء ده ماري ما أنت سن نلا شيء ده ما جرها وقبت مقعدة ما أنت سيا قبل ومش دي مركا أنك بحي وأنا لا أبو أنت أنا الله هاد لا أبو مركز الله نحرستون ولا أمريكا وسعد لك وحجوا نيروبي أبو حيقول ما عندي دين الإسلام كما أقول قبل أو ما ركت نفاس كسعودة إلا فرا وين السكت أنت ظاهر ستو وين سجى ده أبو وعي ولا يغفر عدا لقى بالله وقبضان وكافر انتهى أصدقكم حقوق الشاكية أنا قام أفرن إيه رجعت يا إيه وحس مجران لك رجعت وحيرة مجران رجعت محل ده مال هو النار ما كنا غني ما كنا غنيس رجعت دونه إلا سلاء قلادو سيد مهرك إلا سلاء قلادو كل إلا سلاء قلادو سيد كمان هذا إيه مركزان أنا هذا أنت أنا من هذا كوكو عليه السؤال المركز دوت كويديني ما شرتي تان إلى لوتنا دي جوتكن شقد عدادسكو هيري قاعدة إن أحدها لو يراها صوبة. لوتن ها هداينا واشكتي أنا كبيود أباي لوتن أنا قرطو حمرك ورود قوي حيه guri balaasto ku yaala markii anaga lugay isku toosay guri balaasto ku yaala mortgage ku qaatay si aniga la iigu keeno hooyaday iyo caruur kale oo iga maqnaa labadii inaan soo dhalay inaan kale walaashay dhashay iyo hooyaday maadaama markaas maxay aabay wuu dhintay aabay markuu dhintay hooyaday waxay maaragtay ay u joogtaa malaha ilmihii kalena ay dhoofeen marka haddii aanan laba qof oo wada shaqeynaya aad ahayn home office wuxuu kugu xujeynayaa xagee dadkan dajinaysaa marka waxay noqotay in aan maaragtay aniga gurigaas 3 bedroom balaasto ka gato mortgage ku qaato ka bacdiina hooyo abu hooyo caruurtu dacwada oo la ii keeno kadibna aan mortgage ka baxo because ma awoodi karaayo 7 caruur ah iyo hooyada marka aan wax lacag aan qaadan dependent ugu ah mishaarkayga ma awoodi karaayo marka aan mortgage ka baxo marka saa u helo guri oo waafi ah oo nagu wada filan hooyaday qolay igu dukatay musqul gaaray wax kasta heli karto saa u hel ayaa aniga horta Luton ugu guuray marka Luton 32 kilometer ay u jirtaa Central London mile okay Lutonti marka ninki qabay aniga markaan dhibaatadii maaragtay odagii markaan soo kala baxnay ka shaqada haray ka shaqada sida ma soo socotaa anina mar raba in kariin dambe la ii qoro then again I got depressed hadana again xanuunsan only Yusuf garadartis markaan ma ku jiro ninkii وكل يوم مركان لوتن تجينا وصار وحش ماذا هو سمينا وحيابه أو emotional abuse وحكمده هو كله برنامج أو كان سنة ساحلة برنامج كان أنت حسست برنامج كان يفيدسو أو في عناية يونيفرسال وبلا بجر كده من دور كوحي هذه هسا الربي ما قعدنا شدوا هواء يوسف مركب حس سمينا وكود دي يا فكرك صدح بلاد كدب أو بيل كدب سنة على صباحية وحولايها برنامج كان نوعان هو كاري سمتر اللي يرابع سمينا يا والمحل سمينا صباح سو برنامج كي معها سؤالو كوما كنسن هدي لا سمينا وانا سمينا سو ما دد بدن يكون عبد السهري ويكون عدا اوغا يعني مرقاتي كان ويكون عدا بس عبد السلام وحو اها وفرفصنا وفرفرنا وحو اها نين كرياتيفيتي كسو فيعن tahay nin maxay marka wixii uu la yimaado marka saas laga celiyo oo aan soo qofkii isla soo taaga maxay taas wadasid ma Yusuf garaad dadka ma dilaynin لكن وقايب كميدا إلا أمر كده بقوي جارسيون يراي ده بس يوسف بس كي قاتها وكوكو احترام معايا تاس لكن حد وحي كده بقى no verbal communication أنا يا دكان ما نحمر كرا لوتنا كوسات لوتنا دكنا ويجي سبتي أحد ريل كوالا لسا برها ترينا ولا لسا رينو سان ومسعدان سبتي أحد ما هو بس أسكت تاي لندن سبتي أحد يوجو قراه شقالة كلا أنا إلى مدة أو كوكوري كرا أو مارت مال بوش هاوس قتد جنة واجرة أنا أقول قراه أنا ترانك أنا صار راعة حتى هدان الله يا نفط كل ما نصير راعة معها محن سمينا مرك جمعها مركان إلى سبت أحد كقرانا مساعد كسيحنا ورجع ما مقش الجبر بي سي وشقسيه هي أدنى عشان كلا مساعد كسيحيس مساجد مركان حقوق مساجد قال لا بقى مساجد ومتفرق كده كده بوش هاوس كده حياله بوش هاوس كده حياله بس أنا شقيا واحد نكرر ديك لو يمر مرسونا شقيا اللي جريه ما شقيا صار دوك يلا كودا ما تم تقالوا وسوي مغلاه سوي اللي حكم كانوا ديبتي يا قفكم مركم مالك هاجا أدق يا نعسنا يا دقن هاي سننا وجا بخسن ميسد سننا إنه كل ديبتي وجا ما بخسنس يا أنت هم بركن سواء قاطي
oo waxaaga soo qaatay oo soo qaatay ku beertay yara hugsado ayaan anigu masaajid ka dhigtay oo qof salaadeeda tukada ahaaya salaadeeda markaan tukado ceshaha oo dadka dhan baxaan aan masaajidkayga seexan jira aniga si aanay aniga shaqadaas aanan u beer daraynin oo shaqada sida la iga raba ah uga soo baxo ilaa ninkan xunka ah ii naxariisan maayo soomaalinimana iigu turi maayo boosnimana iigu turi maayo wuxuu iigu ma ogaayeen shaqaalaha BBC da shaqaalaha ila shaqeeya haa waa ogaayeen inaad meesha haa waa ogaayeen weliba wiil maxamed laakiin cid wax ka qaban karaysa wiil maxamed cabdalla yiraa oo hadda jooga ayaa nin kale oo afrikaana oo meel sare xukumaaya markaas ayuu u sheegay wuxuu ku yidhi gabadha dhibaatadaas haysata ninkii wuu cadhooday wixii ugu yiri dacwo iyo soo gudbi dacwadii waa gudbiye waxba waa sameeyey waxaa jirtay gabar kaari black baan la dhahaayo oo intay depressed noqotay isdishay haddaa xasuusato oo madaxa ahayd African and Middle East ninkii maalintan u tagay tusaale soo qabtay waxaan ku yidhi dhageyso hadda ka hor I tried to kill myself hadda mar labaad ma raba inaan isdilo markan dambe on depressed noqonaya asaga abuse-kiisa nin ma jooga markaan waa Yusuf bas waxaan daawo qaadanayay 9 bilood and then hal bil sanad iyo 2 bilood daawada ugu socday laakiin 3 bilood dambe daawada layga yareynaa because side effect-ga daawada ayay iyadoo dhibin maxaa dhacday suuqa ku dhameeyay waxaa dhacday inaan dhinaca midigta inaan u socdo ay daawadii dhinaca midigta side effect-ga daawadii dhinaca midigta u guraa oo Yusuf shaqooyga rabaa si kasta hadaan dhawaa jirana qolada waxa dhakhtarku kuma siin karaya adiga inaad shaqeyn karin dhakhtarku kuma siin karaya warqad inaad shaqeyn karin warqad waxa jiro waxyaabo sharci oo asagoo inuu waxba ka qaban karin diidi karino laakiin qofka inuu fasax xanuun aado ma qarin jirin aniga fasax xanuunkayga aniga anti depressant tablets ka soo la igu soo qoray oo ganjil la dhakhtarkayga recordkayga waa haya why Amina why adiga shaqo saan weyn oo ka shaqeeyo why ninkan ku abiso why dadku ugu why u sheegay dhakhtarkay ay dhahay amina hadan ku weydiiyo markii dambana abaay markii daawada iyo dhamaata go'aan waxaan gaareynaa iscasilo okay laakiin iscasilaadaas waxay socotay 8 bilood oo kale iscasilo oo aan ka nasto oo aan bas because aniga asaga ma bedeli karo aniga ninka guriga igu abuse waa bedelay okay waa kala tagnay laakiin aniga Yusuf shaqo ma ka eri karo qof walbuna abuse aniga kaligay ma ahayn laakiin aniga waa ugu nugla because gabarna waa aha maxay ahayd xaalado badan oo shakhsiyadeed family waa haystaan wuxuu dhan ogaa intaas waxay tahay intaas oo dhan markay dhacayeen dadkan meesha ka shaqeeya idinka isaga idin madaxa qof kastana markuu meel joogo isaga ku maamuusan oo hadda wixii fiicnaadaanna isaga ku magacaaban hadda xumaadaanna isaga maxay kula tahay inuu ku kalifi karay Yusuf xilliga shakhsiyadiisa qof bartibaatay qof la soo shaqeeyay sidan aad ka sheegayso oo dhan baanan ka wada maqlay si ka badan dhamaan badalka soo shaqeeyay in uu meeshii uu isagu xukumayay ay fool xumaato maxay isaga ku kalifayay bay kula tahay muxuu ka faa'iiday waxa iga xasuusinay inay Aamina ahayd qofkii kaliya ee ka tagtay shaqadii BBC-da iyadoo aanay diyaar u ahayn shaqo kale nolosha Aamina Muuse Weheliye maaha mid lagu soo koobi karo barnaamijyo laba sidaas awgeedna waxay gacanta ku haysaa buug koobaya guud ahaanba nolosheedii waxa uu leeyahay buugu qayb maqal ah taasi oo u sahlaysa dadka aragga naafada ka ama akhrisku u dhibayo waxa uu soo baxayaa sanadka dambe haddii ay barraali ka noqdo haddaba haddii adigu aad jeceshahay ama aad u baahan tahay inaad si toos ah ula xidhiidho Aamina Muuse Weheliye waxaad haatan bashaashada hortaada aad ka aragtaa dhammaan ciwaanada